السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مريم اليومين أول واحد كسر دواتي وروحي الدلك هذا كان عاود كسر قريب قد بدأ عند الدلك وكي حاجة تمشي كان بوحة كاملة مدحنا جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر الجيلي يساك قيب قاتل فد ورجلين أو قصابسن هل كان مريان هواها الدسمه كسر ودكدا الدور على جرهم قريبة من الكونتينركا أقل كرسي هي رجلنا أو قصابسن حقوق ضع حوانك وضمدها عربات استعمالك عادوك يحريرك وبحياة cudurka biyaha sida yasaaka ka furmay hotelka Campeski Palace Hotel ku yaala caasimadda Djibouti wasiirka dawladda iyo isboortiga ee dalka mudane Xasan Faarax Miguel oo uu hoggaamiye kalkaaliyaashiisa ayaa saaka soo boqday ciyaartooyada xulka qaranka Djibouti oo tababar ku qaadanaya xarunta farsamada wasaadkii hore municipal la yaqaano intaasi warkii oo kooban haatanna warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa saa ka qayb qaatay afadhi wargelin ku saabsan halka ay marayaan hawlaha dhismaha ka socda dekedda Doorale gaar ahaan qaybta terminal container madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geele markii uu gaaray hotelka Campeski Palace Hotel caasimadda Djibouti waxa halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta ee dalka Ismaaciil Ibrahim Maxamed gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka cagan cashuuraadka Cabdiraxmaan Maxamed Bare iyo agaasimaha qaybta Zan Afranche ka Zainab Kamil Ali waxaana sidoo kale halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta kala duwan ee marsada Djibouti afadhigaasi oo ka dhacay hotelka Campeski Palace waxaa ka qayb qaatay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Ismaaciil Ibrahim Maxamed gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka cagan cashuuraadka Cabdiraxmaan Maxamed Bare agaasimaha qaybta Zan Afranche ka Zainab Kamil Ali agaasimaha guud ee marsada Djibouti Monsieur Guido Herman intii fadhigaasi uu socday ayaa madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa loo soo bandhigay halka ay marayaan hawlaha dhismaha dekedda si Doorale oo gacanta ay ku hayso shirkad laga leeyahay dalka Brazil Oder Press la yaqaano waxaana lagu wadaa in dekeddaasi ay hawl gasho sanadka 2008-2009 in ka badan 836 shaqaalaha oo toddoba badan reer Djibouti ayaa ku hawlan dhismaha dekeddaasi waxaana sidoo kale madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geele soo bandhigay tababaro loo fudin doono dhalinta reer Djibouti in mashruuca uu ka mid yahay ugu dambeyntii mas'uuliyiinta marsadaasi ayaa ka codsaday madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geele in uu gacan ka siiyo dhismaha dekedda xagga xoolaha lagu talagalay kulankii heerka wasiir ah ee laga hadlayay qaabka loo maareyn karo masiibooyinka dabiiciga ee wadamada xubinta ka ururka Golden Spear ayaa maanta kii dambe hawlihiisa laga soo gabagabeeyay hotelka Campeski Palace Hotel caasimadda Djibouti qaybgalayaasha ka qayb qaatay shirkaasi ayaa isku waafaqay qodobada doorashada agaasimaha iyo mas'uuliyiinta xarunta heerka degmada qaabilsan maareynta masiibooyinka ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya sharciyada maaliyad ee xaruntaasi miisaaniyadda sanadka 2008 ee ku shaqayn doonto xaruntaasi sidii gudiyadaasi ay isugu xilxigin lahaayeen iyo weliba istaraatiijiyada ay ku shaqayn doonto xaruntaasi waxaana ka qayb qaatay gabagabadii afadhigaasi wasiirka arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobolada mudane Yaasin Elliboor xogayaha howlfulinta maareynta masiibooyinka Axmed Maxamed Amadar iyo gudoomiyaha xiriirka saaxiibtinimo ee xarunta qaabilsan istaraatiijiyada Afrika ahna xildhibaan ka ah golaha baarlamaanka Djibouti Axmed Jaamac Geedi afadhiga dambe isugu iman doonaan heerka wasiir ee dalka xubinta ka ururka Golden Spear waxaa lagu qaban doonaa caasimadda Kigali ee dalka Rwanda haddaba intii uu shirkaasi uu socday qodobadii iyo ajandayaashii laga baaraandegada shirkaasi waxaanu ka wareysanay wasiirka arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobolada mudane Yaasin Elliboor oo ka qayb qaatay soo gudjoog ahaa gabagabadii afadhigani oo maanta kii dambe laga soo gabagabeeyay hotelka Campeski Palace ee caasimadda Djibouti waxaa markaa sharaf loo ah ummadda Djibouti wadankeena dowladeena waxaa u sharafa inaan si wanaagsan oo qurux badan aan u qaban qaabino shirka wasiiradu wadamada Golden Spear la isku yimaadeen oo ka kooban 12 wadan waxa weeyaan ay halkaana shirkaasi uu noqday shirarkii badnaa la soo qabtay amba lagu soo qabto Qaahira lagu qabto amba lagu qabto madagaranaysa Kenya lagu qabto amba Rwanda lagu qabto shirkii inta badan intii ugu badnaayay wasiir ay yimaadeen ay si wanaagsan uga soo qaybgaleen noqday si ugu qurux badan gaarigu loo nidaamiyay waxa ka soo baxay natiijooyin wanaagsan ay tahay
ay tahay haddii ay noqoto magaranaysaa santarka jadiidka la sameeyey sidii magaran wadanadeena ugu fasixi lahaa inay si wanaagsan oo magaranaysaa degdeg leh oo magaran xilkasa oo khabiirnimo loogu hortegi lahaa masiibooyinka dabiiciga ka yimaada dhibaatadana looga yeelin lahaa shacbiga ummadahaasi wadanadeena uu ka kooban yahay wadanada golden spake uu ka kooban yahay waxaa dee halkaas ka soo baxay oo lasla qaatay madaxdii halkan isku yimid wasiirada isla qaateen ilaa 5 sanadood dambe wixii in la qabta ahay magaranaysa hadday tahay xag siyaasadeed wixii in la qabta ahayd magaranaysa hadday tahay xagga magaranaysa waxbarashada hadday tahay xagga kale warsadaafsiga hadday tahay sida magaranaysa horey loo garan lahaa hadday waxa imankaya dhibaatooyinka iyadoo la adeegsanayo cilmiyaga waxa cilmigu fasaxayo maanta ahaan hadday tahay magaranaysa hadday tahay roob hadday tahay dhulgariir hadday tahay magaranaysa ay tahay daad wixii ka iman karaya amba biyo ka iman karaya amba dab wixii doonaha ka yimaadeen sidii wixii cilmigu maanta fasaxayo in dadka wadanada dowladahaasi sidii ay ugu hanti lahayn degdeg ugu hanti lahayn sidii ay uga faa'iidi lahayn cilmigaasi ma jiraan masiibooyinkaas ama dhibaatooyinkaasi wadana ay hore u qabsadeen ama inta ururkaas uu jiro ay soo gaadheen oo ururkani isagu wax uu ka taray ama wax ka qabtay iyadoo kaalinta Djiboutiyada ay kaga jirto iyadoo madaxweynuhu sheegay inuu joogo halkan joogay ee muhiimada gaarkaasi la Djibouti arrinkaas ururkani waa urur horta magaran dhalinyar oo waqti dhow la asaasay ana weli taabagelin aanan madarasa gelin waxa keenana waa weeyaan cabsida laga qabo dhibaatooyinkaasi wadankeena waxa uu ka mid yahay wadanadaasi inkastoo haddana dhibaatooyinku ay ugu bedleen insha Allah xagga ilaahay baan magaraysaa ka rajaynaya in ugu dhicin laakiin sida haddana wax magaraysaa in dawladdu kolka leeyahay in waxa waajib kugu adeey magaraysaa shacbiga mas'uuliyad baa laga saaray sidoo madaxweynuhu sheegay in laga sii tashado wixii laga badbaadin lahaa dadka hadday tala noqoto iyaka la siinayo hadday magaranaysaa cilmi ahaan wixii wax lagaga qaban lahaa wixii lagu hortegi lahaa ay tahay hadday noqoto magaranaysaa dadkii waxa ummadda u sahlin lahayd waxbarashadooda hadday tahay iyo magaranaysaa iyo dadaalkooda hadday tahay hawshaa oo dhan la sii galayaano ilaa aan bedelin daraarta dhibaatada timaada maahno hurdada laga tooso la dambe la qabno la isku meeriso maahno laakiin si waxa oo dhan la sii geliyeen wasiirka arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobolada mudane Yaasiin Cali Buuxa faahfaahin ka bixinaya qodobadii weliba natiijooyinka soo ifbaxay kulankii laga hadlayay qaabka loo maareyn karo dhibaatooyinka masiibooyinka dabiiciga ee wadamada xubinta ururka Golden Spear kadibna waqtiga ka qayb qaatay kulankaasi waxa dabeeto ay soo boqdeen dhismayaasha kala duwan ee marsada Djibouti waqtiga hadii ka qayb qaatay shirkii laga hadlayay qaabka loo maareyn karo dhibaatooyinka masiibooyinka dabiiciga ururka Golden Spear ay ku dabeeto soo boqday dhismayaasha kala duwan ee marsada Djibouti waxaana safarkaasi ku weheliyay guddiga soo qaban qaabiyay kulankaasi waliba guddiga qaabilsan maareynta masiibooyinka dabiiciga dalka Djibouti waxaana ay soo boqdeen waqtigaasi dhismayaasha kala duwan ee marsada Djibouti sida qaybta kontineerka sida loo soo yahay wadamo badan ayaa kulankaasi ka qayb qaatay waana wadamada xubinta ururka Golden Spear sida Ethiopia, Eritrea, Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya, jasiiradda Seychelles, Masar, Tanzania, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo waliba Djibouti fadhigaasi sida loo soo waxa qodobka ka jira bishan ay ku jiraan shanteedii madaxweynaha dalka mudan Ismaaciil Umar Geele aqoon kororsi heer degmaha ku saabsan xuquuqda haweenka wadamada Carbeed isticmaalka caadooyinka iyo xiriirka u dhaxeeya cudurka VIH-sida ayaa saaka ka furmay hotelka Campeski Palace Hotel ee caasimadda Djibouti munaasabadaasi waxaa si wada jir hawsu u daadihinaya wasiirka caafimaadka dalka Cabdullaahi Abdullaahi Migil iyo wasiirada qaabilsan kobcinta arrimaha haweenka Aisha Maxamed Roble
aqal kororsiga halkudhig looga dhigay haweenka carbeed oo howlgalaya aayahooga ayaa waxaa ujeeda ka qayb qaatay wakiilka hay'adda PNUD Sunil Asagan wufuud ka soo dalka Soomaaliya Suudaan Masar Liibiya waxaana sidoo kale ka qayb qaatay wadada diinta aqal kororsiga maalinta axadda waliis laga soo gabagabayn doona ayaa laga xajoon doonaa sidii loo soo xoojin lahaa la dagaalanka isticmaalka caadooyinka iyo cudurka VIH-da wakiilka hay'adda PNUD u jooga Djibouti Sunil Asagan hada gaabal ka jiray fadhigaasi ayaa cadeeyay in fadhigan uu qayb ka qaadan doono xal u helidda cudurka VIH-da iyo weliba sidii loo xoojin lahaa xuquuqda haweenku ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda furitaanka aqoon kororsigaasi heerka degmada ku saabsan haweenka iyo weliba isticmaalka caadooyinka iyo xiriirka u dhexeeya cudurka VIH-da waxaa hadal gaaban ka jeediyey wasiirka caafimaadka ee dalka Cabdallah Cabdulaahi Migil car nous considérons que le VIH-Sida est une grande priorité au sein de notre région et son wasiirka caafimaadka ee dalka Cabdallah Cabdulaahi Migilna waxa uu jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo kobcinta arrimaha haweenkuba waxa ay si weyn u soo dhaweynayaan kulankan heerka degmo ee laga hadlayo xuquuqda haweenka carbeed isticmaalka caadooyinka iyo xiriirka u dhexeeya cudurka VIH-da waxaana ay ka mid yihiin dhinacyadaasi mudnaanta ay siiso xukuumadda Djibouti sidii looga hortagi lahaa cudurka VIH-da sida la ogsoon yahay waa cudur farakul ku hayo caalamka waxaana loo baahan yahay in jawaab cad laga baxsho cudurkaasi isticmaalka caadooyinka geestiisana waa mid isna dhibaato u keena bulshada labadaasi qodob ayaa loo baahan yahay in jawaab cad laga baxsho sidii looga hortagi lahaa qaar inaga mida ayaa mooda in cudurkani uu yahay mid laga xishoodo oo aan la sheegi karin balse fikradaasi waa mid khalad ah inta haddaba fadhigani uu socon doono waxaa si ballaaran looga baarandegi doonaa sidii loo meeldhigi lahaa istaraatiijiyad heer degmaha oo lagaga hortegayo isticmaalka caadooyinka iyo weliba cudurka VIH-da iyo weliba kobcinta xuquuqda haweenka waa in sidoo kale la tixgeliyo xeerasha ku xusan diinteena anigoo mar kale ku faraxsan furitaanka kulankani heerka degmo ee lagaga hadlayo xuquuqda haweenka wadamada carbeed isticmaalka caadooyinka iyo xiriirka u dhexeeya cudurka VIH-da waxaan shaaca ka qaadayaa furitaanka shirkani heerka degmo kadibna hadalka halkaasi uu ka jeediyay wasiirka caafimaadka ee dalka Cabdallah Cabdulaahi Migil ka qaybgalayaasha ka qayb qaadanaya aqoon kororsigan heerka degmo ee ku saabsan xuquuqda haweenka wadamada carbeed isticmaalka caadooyinka iyo xiriirka u dhexeeya cudurka VIH-da ayaa ka qaybgalayaasha waxa markii dambe ay ambaqaadeen howlaha fadhigaasi kadib furitaanka khudbada shirka halkaasi uu ka jeediyay wasiirka caafimaadka ee dalka Cabdallah Cabdulaahi Migil ka qaybgalayaasha ka qayb qaadanaya fadhigaasi ayaa ambaqaaday howlaha fadhigaasi waxa uu socon doonaa muddo 4 maalmood waxaana laga baarandegi doonaa qodobo ku sale dhinacyada xuquuqda haweenka carbeed isticmaalka caadooyinka iyo xiriirka u dhexeeya cudurka VIH-da waa mid farakul ku haya caalamka in ka badan 1 milyan oo qof ayaa cudurkaasi u asiibay oo uu ku dhacay markab laga leeyahay dalka Jarmalka lagu magacaabo Oxford ayaa habeenkii xalay lagu qabtay munaasabad qayb ka ah xuska midowga labada Jarmal munaasabadaasi waxaa ka qayb qaatay mas'uuliyiin reer iyo militari isugu jira iyo weliba danjirayaasha wadamada shisheeye u jooga Djibouti danjiraha dowladda Jarmalka u jooga Djibouti Club Class oo hadal gaaban ka jeeday munaasabadaasi ayaa tibaaxay in uu ku faraxsan yahay xuska midowga labada Jarmal Jaamac Ibrahim oo ka socda ururka dhaqanka Jarmalka iyo Djibouti ayaa isna sheegay in geesiisa uu ku faraxsan inuu ka qayb qaato munaasabadan lagu xusayo xuska midowga labada Jarmal waxaa halkaasi heesa ku soo bandhigay fanaaniinta dalka munaasabadaasina waxa ay ka dhacday markabka Oxford oo laga leeyahay dalka Jarmalka isagoo
ku jira howlaha la dagaalanka argagixisada. Les relations germano-djiboutiennes vont beaucoup plus loin. À savoir la coopération des deux gouvernements dans les formats internationaux. Nous sommes vraiment très reconnaissants du soutien djiboutien sur le plan international et aussi la coopération des deux ministères des Affaires étrangères dans la formation des jeunes diplomates pour être aussi un exemple pour la coopération entre les deux pays. Et la coopération humanitaire, la coopération sans... جرها دولة جرمالك waxaa sidoo kale uu cadeynu ku faraxsan yahay xiriirka u dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo weliba dalka Jarmalka dhinacyada kala duwan haday noqoto dhinaca difaaca iskaashiga iyo weliba dhinacyada kale. Germano-djiboutienne a été créée il y a quelques mois avec le soutien de l'Institut Goethe. Notre association a pour but de concourir, d'instaurer une culture d'échange et de solidarité à l'échange culturel entre l'Allemagne et Djibouti. Jarmalka iyo Djibouti si ka qayb qaatay xuska midowga labada Jarmal waxaa soo sheegay marka hore ku faraxsan yahay inuu ka qayb qaato munaasabadani waxaana uu cadeeyay in ururkiisu uu qayb weyn ka qaato isku xirka dhaqanka u dhaxeeya Djibouti iyo weliba Jarmalka. wasiirka balinta iyo isboortiga ee dalka mudane xasan faarax migray haweenka kaleyaashiisu ayaa saaka soo booqday ciyaartooyda xulka qaranka Djibouti oo tababar ku qaadanaya xarunta farsamada qaranka ee ka kor loo yaqaano Stade Municipal. ciyaartooydaasina waxa ay isugu soo diyaarinayaan ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee Afrika ee 2010 waxaana ciyaar kamid ah ciyaarahaas ka hor iman doona 16 bishan ku jirno xulka qaranka dalka Soomaaliya. wasiirka howlgabka ka jira kulankaas ayaa cadeynta garoonka kala joogo xulka qaran ee Djibouti. xulkii ekibada ama ciyaartooyda kubadda cagta ciyaaraya tiim ciyaartiin kor tagtiin ekibka kale ee walaalahooda imanaya la ciyaari doona garanaysiina ciyaartooy kolkii leeyahay wax lagu xisaabtamaa iyo kaalintaa galaya oo shaqadaa qabanaya oo hawshaa galaya sharaf weyn intii kale ee badnayd ee matalaysiin marka afraadna qarankii baad matalaysiin intaa oo karaamadood oo qiimaha ayay geleediin raggiina kan maanta halkan fadhiya hambaliyo aan ciyaaraysiin waa ciyaartuna intii ilaahay ka sokaysa waxay ku jirtaa waa sidii aad tusisiin iyo wixii aad ciyaar aad muujisiin ayay ku xidhan tahay annaku dee aaminsan ku nahay sida uu gudoomiyaha ciyaaruhu sheegay waxa aan oo rajo qabna oo ku qabna iyaga lagu qabna intii ilaahay ka sokaysa inaad guul qurux badan keenaysiin hawshaa dee inu taallaasi dee iminka iyagu hor taallaa ummadii reer Djiboutina dee way inu sugaysaa waxaan filayaana waa markii labaad sida ay ii sheegeen guddida maamulka ee fulinta ee ciyaaraha kubadda cagtu in halka kan dalkeena lagu ciyaaro waxaad dee tii hore kaga duurtiin maanta nidaamkaad ku ciyaaraysiin waa nidaamkiinu shacbigiina reer Djibouti oo daawanaya ciyaartooydiina iyo saaxiibadiina kale oo nala jooga dalka gudihiisa kolka lagu ciyaarayo kolka dibadiisa tagana waa kala duwan tahay. wasiirka balinta iyo isboortiga dalka mudane xasan faarax migray howlka guubada u jeedinaya ciyaartooyda xulka qaran ee Djibouti oo 16 bishani isaga yimid ciyaarta reebka koobka Afrika ee 2010 xulka qaran dalka Soomaaliya.
guddiga sharciyeynta iyo maamulka guud ee golaha baarlamaanka ee Jabuuti ayaa maanta shir isugu yimid guriga ummadda ee caasimadda Jabuuti fadhigaasina waxaa daadiyay gudoomiyaha guddigaasi Suleymaan Mudir Cali waxaana ajendaha ku jiray laba mashruuc oo kala ah mashruuc xeer oo ku saabsan aasaaska wakaalada qaran ee shaqada iyo soo bandhigida mashruuc xeer oo ku aadan taageerada loo fidinayo madaxweynaha dalka Mudane Ismaaciil Cumar Agila ku saabsan dacaayadaha iyo been abuurka ay wadeen saxaafadaha dalka Faransiiska ee ku saabsan dhimashadii xaakimkii Borel xukuumadda fadhigaasi waxa uga qayb qaatay wasiirka shaqada Maxamed Diini waxaana si ballaaran xildhibaanadu ay uga baaraandegeen mashruuc xeer ku saabsan taageerada madaxweynaha loo fidinayo waxaana isku raaceen in loo gudbiyo ansixinta qodobkani fadhiweynaha loo dhanyahay golaha baarlamaanka ee Jabuuti sida loo soo yahay banaanbaxyo laga soo horjeedo been abuurka ay wadaan saxaafadaha dalka Faransiiska ee ku saabsan dhimashada xaakimkii Borel ayaa laga qaban qaabiyay dalkeena 25 bishii Oktoobar ayna soo dhaafnay qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay wixii dalka habeenkan caawida ka soo gaaray inta dib u kulmi doono dhammaantiin baa meel ka soo joogteen oo naga daawanaysan waxaan dhiga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo